Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaar ka mid ah dadka ku xiran ayaa aad waxay iiga soo codsadeen bal in aan joornaalada sheekooyinka laga qoro Mareykanka bal qaarkood aan u turjumo si ay ingiriiskooda ay uga kororsadaan. Marka qoraalkan waa qoraal lagu qoray jariirad ka soo baxda wadanka Mareykanka, waxaana ay ka sheekeynaysaa nin dembi galay oo lagu xukumay xabsi. Marka la socda sheekadan, nin sentence ayaa lagu xukumay to nearly ku dhawaad 11 years 11 sano for library arson, dabka uu geliyey ama gubitaanka uu gubay maktabadda. A man sentenced to a nearly 11 years for a library arson. Nin ayaa waxaa lagu xukumay 11 sano dab kadib markuu dab geliyey maktabadda. Okay, a St. Cloud man, nin reer St. Cloud was sentenced ayaa waxaa lagu xukumay Monday, maalintii Isniinta ahayd, to almost 11 years. Waxaa lagu xukumay ku dhawaad 11 sano in a prison, xabsi, for starting a fire, dabkii uu ka bilaabay that closed St. Cloud Public Library for 2.5 months. Kaas oo xiray maktabadda magaalada St. Cloud 2 bilood iyo bar. A St. Cloud man, nin reer St. Cloud St. Cloud waa magaalo yar ku taalla gobolka Minnesota, magaceeda la yiraahdaa. Was sentenced ayaa waxaa lagu xukumay Monday, maalintii Isniinta ahayd, to almost 11 years in prison, xabsi gaaraya 11 sano, for starting fire, dabkii uu geliyey, that closed the library oo xiray library-ga St. Cloud Public Library, maktabadda dadweynaha ee magaalada St. Cloud, for 2.5 months, waxayna maktabaddu xirayd 2 bilood iyo bar. Ninka magaciisa oo la yiraahdo George Ozornia 47 uu jira 47, pleaded guilty waxa uu qirtay dembiga in bishii September for arson, inuu dab geliyey buu qirtay. Admitting wuxuuna qirtay that he set a fire, inuu dab geliyey meesha August 17, bishii August 17keedii, that closed the library, kaasoo xiray maktabadda for 11 weeks 11 isbuuc. He was convicted of a felony. Waxaa lagu xukumay ama lagu helay xabsi oo rikoorka loo geliyey a felony, diiwaanka loo geliyey dembi weyn oo ah first degree, darajada koowaad, arson oo waxgubid ah. And sentence waxaana lagu xukumay to 129 months 129 bilood. With a credit waxaa loo xisaabiyey for 97 days served, 97 maalmood oo xiraana waa loo xisaabiyey. Azornia ninka la yiraahdo were also ordered, waxaa kaloo sidaas oo kale lagu amray to pay, inuu bixiyo nearly ugu yaraan ama ugu dhowaan 957,000. ninkaasi waxaa lagu xukumay inuu bixiyo 957,000 waa 1 milyan ku dhowda in restitution oo magdhaba. The library, maktabaddu, needed waxay u baahatay a major cleaning, nadaafad zaa'id in la geliyo, and a repair, dib-u-soo-celin lagu sameeyo, after the fire, dabka ka bacdi. dabka markuu dhacay maktabaddu waxay u baahatay in loo hagaajiyo, which caused a structural damage, waxayna u geysatay dhaawac burbur ah ayay u geysatay oo xagga dhismaha ah. Damage waa waxyeelo, structurena waa dhismaha. Spread wuxuuna ku fiday suit, qiiqiisii wuxuu ku fiday through the library, maktabadoo dhan buu ku fiday. All the books, dhammaan buugaagtoo dhan, computers, kombiyuutarada, air decks, iyo halka ay hawadu ka baxda had to be cleaned, waxay noqotay in la nadiifiyo, and the granite, iyo dhagaxa
dhalaala ee dhismayaasha lagu sameeyo ee guryaha lagu dhisto dhagaxa granite la yiraahdaa dhagaxa xataa in la dhaqeey kana keentay windows iyo dariishadaha ceiling saqafyada tiles had to be replaced oo noqotay in la bedelo the library reopened November 3rd library-ga dib waxaa loo furay bisha November 3deedii Azornia ninka la yiraahdo was accused waxaa lagu eedeeyay of starting inuu dab ka bilowday a fire dab on a chair kursi on the second floor oo yaalay dabaqa labaad okay of the library maktabada and feeding wuxuuna dabka ku ridayay with the pages of from the book pagekiisna wuxuu ku ridayay ninkani dabka marka ninkani dab wuxuu qabatiyay kursi buug intuu soo jarjaray baalashiisana ku shubay buug marka wuxuu ahaabay leeyihiin pages from a book oo book ah the book the ancient civilization ilbaxnimadii hore ee dadkii hore buugga magaciisa waxaa la dhahaa the illustrated guide to belief magaca buugga weyntaas loo soo gaabiyey Azornia ninka la yiraahdo told wuxuu sheegay people dadka watching him daawanayay fan the flame markii uu dabka ku qabatinayay flame waxa la yiraahdo ololka they should call the police waxa uu ku yiri booliiska u yeera when officer arrived markii askarigu soo galayna Azornia ninka la yiraahdo immediately isla markiiba approached wuu u tagay the officer askariga with his hand in front of him gacmihiisu xagga hore ay yihiin as if it should be handcuffed aad u moodid inuu leeyahay hal ay xiro oo katiinad hal ay ugu qabto according to the criminal complaint sida ay leedahay andacooyinkii dambiga lagu soo eedeeyay criminal complaint waxa la yiraahdaa booliiska dacwada uu qofku uu ka qoro waxa lagu soo eedeynayo Azornia ninka la yiraahdo had a criminal record wuxuu leeyahay diiwaan dheer oo xagga dambiyada abu leeyahay in Minnesota gobolka Minnesota dating back oo dib ilaa iyo xilli hore ah 1994 ilaa 1994 that includes taasoo ay ka mid tahay motor vehicle theft gaari uu xaday assault qof uu gacan qaaday and making terroristic threat iyo hanjabaad uu dad u hanjabay he was sentenced waxaa lagu xukumay in the late 2013 ayaa lagu xukumay in Meeker County to 32 months in prison degmo kale oo la yiraahdo Meeker dambi uu ka geystay oo ahayd inuu waxna xaday dad la dagaalamay terroristic threatkaas waxaa lagu xukumay 33 bilood xabsi ah after authorities say that he made a terroristic threat markay dawladdu ay yiraahdeen ninkani wuxuu sameeyay argagixiso hanjabaad argagixiso ah so ninkaas bay ku saabsaneyd sheekada dib haddaan ugu noqono ereyo aan xoogaa calaamadeeyay baa jiray oo ereyo badan oo macaan furdaada marka kaas waa barnaamij aan idinka soo qaaday journal ka soo baxa magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ka tirsan waxayna ka warramaysay nin dambi geystay ereyadan wixii aad ka faa'iidi kartaan oo kaas. Assalaamu calaykum.